السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا موضوعنا مانتا تاريخ ودنك مريكانكا قبل اسكوتة أمريكا ودولة فدرال دستورية dhacdana bartamaha waqooyiga Amerika waxay ka koobantahay 49 gobol oo xiriirsan iyo gobolka Alaska oo dhaca waqooyi galbeed wuxuu xuduud la leeyahay Canada oo ka xigta waqooyiga iyo Mexico oo koonfurta ka xigta caasimadda waddanka waa Washington DC waddanka Mareykanka waa waddanka saddexaad ee ugu ballaaran dhul ahaan cabir dhan 9 milyan iyo 600 kun oo kiiloomitir ahna waddanka saddexaad ee ugu dadka badan tiro dhan 326 milyan magaalada ugu weyn waddanka uguna dadka badan waa New York waddanka Mareykanka waa waddanka koowaad oo ay ku nool yihiin dad kala dhaqan iyo kala asal ah waddanka Mareykanka wuxuu xornimadiisa ka helay gumeystigii boqortooyada Ingiriiska sanadku markuu ahaa 1776 waqtigaas oo Mareykanku ka koobnaa 13 gobol oo ku yaalay dhinaca bariga ee waddankaasi waddanku wuxuu ballaartay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 18aad wuxuuna gobollo badan ka qabsaday wadamada Faransiiska, Isbaanishka, Ingiriiska, Mexico iyo Ruushka oo uu ka iibsaday gobolka Alaska wuxuuna ku sii darsaday gobollada Texas iyo jasiiradda Hawaii oo markaas ahaa jamhuuriyado dagaalkii sokoye ee waddanka Mareykanka wuxuu bilowday 1860meeyadii markii gobollada koonfurta iyo waqooyiga isku qabsadeen xukunkii waddanka iyo dhinaca adoomada wuxuuna sababay dhimashada 1 milyan oo ruux oo 620 kun oo kamid ah ay ahaayeen askartii waddankaasi waxaana dagaalkaasi ku guuleystay gobolladii waqooyiga waxayna mideeyeen waddanka waxaana la xoreeyay 4 milyan oo adoomo ah dhanka dhaqaalaha waddanka Mareykanka waa waddanka koowaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka hanti dhan 20 trilyan oo dollar markii ugu horeysay ee kaalinta koowaad ee dhaqaalaha adduunka uu noqday waxay ahayd 1872 markaas oo uu kala wareegay boqortooyada Ingiriiska oo in muddo ahba ahayd dhaqaalaha koowaad ee adduunka waxyaabaha uu dibadda u dhoofiyay waddanka Mareykanka waxaa ka mid ah kombiyuutarada moobilada diyaaradaha hubka iyo khamrada kheyraadka dabiiciga ee waddanka waxaa ka mid ah gaaska dabiiciga kobarta ironta uraniumta iyo dhuxul dhagaxda celceliska kororka dhaqaalaha ee sanadlaha waa 2% tiknoolajiyada casriga iyo ikhtiraacadka cusub ee uu sameeyay waddanka Mareykanka wuxuu dunida ku soo kordhiyay tiknoolajiyado cusub oo casri ah sida shirkadda Apple oo soo saarta taleefanada caqliga badan ee iPhone iyo Facebook oo ah mareegtada ugu weyn ee lagu xiriiro uguna shacabka badan Google iyo shirkadda kombiyuutarada casriga ee Microsoft dhanka militariga waddanka Mareykanka waa waddanka ugu xoog badan caalamka waqti xaadirkan ahna waddanka qarashaadka ugu badan ku bixiya dhanka militariga qiyaastii 700 bilyan oo dollar waana waddanka labaad ee ugu ciidamada badan tiro dhan 1 milyan iyo 500 kun markii ugu horeysay ee waddanka Mareykanka noqdo quwad caalami ah waxay ahayd dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka markaasoo Mareykanka iyo Midowgii Soviyeeti ay noqdeen labadii quwadood ee adduunka kadib markii la jabiyay quwaddii ugu xoogganeed caalamka waqtigaasi ee Jarmalka tan iyo 1990 markii ay burburtay Midowgii Soviyeeti dowladda Mareykanka waxay noqotay quwadda kaliya ee ku amar taagleysa caalamka oo wixii ay doontaba ka samaysata fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar sidoo kale ha ilowin inaad subscribe ku sameysid channelka lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan